kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub. dunida kubadda cagta waxa ay awooday inay xamisho xidiga aad u badan kuwa oo kala aaminsan diimo kala duwan sida diinteena quruxda badan ee islaamka, diinta masiixiyada iyo diimo kale oo aad u fara badan. balse waxaynu warbixintani ku eegi doonaa xidigaha aad ugu adag diimahooda dhan walba ay noqotaba ee kubadda cagta ay martigelisay sanadihii ugu dambeeyay. waxaa laga yaabaa inaad adigu aaminsan tahay qaar ka duwan kuwa aan soo wadno ee aan rumaysannahay in diimahooda ay aad ugu adag yihiin, balse warbixintani waxay noqonaysaa fikirka aynu ka haysanno sida xidigaha kubadda cagta ay diimahooda ugu adag yihiin iyo warbixin xasaasi ah oo markaasi la soo saaray. xidigaha muslimiinta ah ee kubadda cagta ciyaara waa kuwa leh doorka ugu muhiimsan ee warbixintan, balse kama reebi karno inaan soo qaadanno xidigaha diinta masiixiga haysta maadaama qaar ka mid ah xidigahaasi ay yihiin kuwa ugu cadcad ee dheesha kubadda cagta. inta aanan muuqaalka gudagelin, haddii janaalkan uu kugu cusub yahay fadlan sabskraib saar, riixi gambaleelka digniinta oo rukumo si durbaba ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan bartan soo gelinno. like nagu dhiirageli, fikradaadana inoogu reeb qaybta kommentiga. maxamed saalax, wiilka reer Egyptian, waa mid aad ugu adag diinteena islaamka. waxa uu booqdaa Kacbada, waxaana uu dadyowga caalamka u muujiyaa sida diinteena islaamka ay u tahay mid naxariis leh. faraha ayuu cirka u taagaa isagoo kaga golle mahadcelinta alla weyne, sidoo kalena wejigiisa ayuu dhulka ku qabtaa isagoo sujuudaya si uu alla ugu mahadnaqo marka uu goololiyo. waana mid dhammaan ushaaqda kubadda cagta ka yeelay inay jeclaystaan magaciisa. dadyow badan oo haysta diinta masiixiga in ay ku haysaan magaciisana waa mid ka dhigay. haddii aad gool kala sii dhaliso, innagu waxaan noqon doonaa muslimiin, waxaynu fadhin doonaa masaajida, waxaan ahaan doonaa maxamed saalax oo dhab ah. waa qaar ka mid ah taageerayaasha haysta diinta masiixiga ee aadka u jecel guusha kooxda Liverpool. sidoo kale taageero waa maxamed saalax waxaa loo arkaa inuu yahay xidig muslim ah oo aad diintiisa ugu adag. sidoo kalena taageerayaasha kubadda cagta ee haysta diimaha kala duwan ay ku xushmeeyeen diintiisa, waana suurtagal in qaar ka mid ah taageerayaashaasi ay diinta islaamka u qaataan madaxiisa. Liete Kaka, inkastoo uu caan ku yahay diinta masiixiga Kaka, haddana waxay dadka qaar aaminsan yihiin inuu jecel yahay magaca Ciise. waa xidig aaminsan diinta masiixiga, aad ayuuna ugu xilleeryahay jaceylka uu u qabo diinta Kirishtanka. Kaka waxa uu dhacdooyinkiisa jaceylka diinta masiixiga uu ku muujiyaa masraxyada kala duwan ee kubadda cagta, sida koobkii adduunka 2002 uu ku guuleystay uu muujiyay sida uu diinta masiixiga u jecel yahay, iyo sidoo kale ku guuleysigii sanadii 2007 ee tartankii Champions League oo ay kooxda AC Milan ka qaadeen naadiga Liverpool. laakiin qisadan ayaa dib ugu laabanaysa markii uu 18 jirka ahaa, waana wax keenay jaceylka uu diintan u qabo. waxa uu ka jabay dhabarka isagoo dabaalanaya kadib markii ay joog kaga dhacday. haddii la qiimeeyo dhaawiciisana waxa ay ka dhigi lahayd mid aan abid ciyaarin kubadda cagta. dhaqaatiirtii u degdegay baxnaanadiisa ayaa sheegay inuu ka kabsanayo dhaawaca Kaka. isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri, Ciise ayaa igu garabsiiyey inaan dib u soo kabto. haddii uusan isagu ahaan lahayn, waxaan ahaan lahaa mid lagu wada kuraasta curyaamiinta. taasi waa sababta wiilka haysta diinta Kirishtanka ee Kaka uu gacmihiisa kor u taago isagoo aaminsan diinta masiixiga. Frank Pilal Ribery, dadka qaar waxay iigu yeeraan Frank, balse aniga ahaan waxaan jeclahay markay iigu yeeraan Pilal sababtoo ah waxaan ahay muslim. waa mid ka mid ah hadallada laga diiwaangeliyay Frank Pilal Ribery, ciyaaraanka Faransiiska ah ee Bayern Munich waqtigiisa quruxda badan ku qaatay. inkastoo uusan ahayn mid muslim ahaa markii hore, balse waxaa la soo tabiyaa in sanadii 2006 uu soo muslimay isagoo dunida kaga yaabsaday qaadashada diinteena islaamka. waxaana uu ka mid yahay xidigaha diinteena ku adag ee kubadda cagta lagu arkay inta taariikhda la xasuusto. inta badan waxa uu diidaa dabaaldega kooxihii uu soo matelay, sidii inuu badi ka qaybgelin xafladaha lagu cabayo khamriga, ku dabaaldegidda alkoolada ama khamriga maadaama xidiguhu ay ku dabaaldegaan, iyo sidoo kale waxyaabaha diinta ay reebayso
maadaama isagu muslim yahay. Ribery waa xidig hadda qayb ka ah kooxda Fiorentina ee ka dhisan cariga Italy, waxaana waqtigiisa ugu badan xirfadiisa uu ka soo muuqday kooxda lagu naynaso FC Hollywood ee Bayern Munich. Neymar Jr. waxa uu ka soo jeedaa wadanka Brazil oo badi dadka halkaasi ku nool ay haystaan diinta Masiixiga, taas oo isagu saameyn ku yeelatay. Neymar waa xidiga ugu qaalisan kubadda cagta dhanka suuqa kala iibsiga, waxaana xiriir fiican uu la leeyahay diintiisa. Marka dib loogu laabto sanadii 2015 habeenkii finalka UEFA Champions League, waxa uu Neymar Jr. muujiyay sida uu xiriir ula leeyahay diintiisa Masiixiga, maadaama uu wajiga ku soo xirtay inuu ku xiran yahay diintiisa 100%. waxaana ay ahayd habeenkii ay Barcelona garaacday naadiga La Vecchia Signor ee ka dhisan gobolka Piemonte ee cariga Talyaaniga ee Juventus, ciyaar ka dhacday cariga Jarmalka. kaliya markaasi ma ahayn, waxa uu mar kale soo muuqday isagoo wajiga ku xirtay calaamada jaceylka uu qabo diintiisa Masiixiga sanadii 2010 tartankii Olombikada. Mesut Ozil sida laga soo xigtay isaga sirta guushiisa waa inuu duceysto quraan uu akhristo ka hor kulan walba. waa mid muujiya inta badan diintiisa ka hor bilaabashada kulan walba, mana ahan wax qarsan. Ozil waa xidig asal ahaan ka soo jeeda Turkiga oo dal muslim ah, sidoo kalena Jarmalka kula guuleystay koobkii adduunka 2014. waxa uu ka mid yahay xidigaha diinteena Islaamka aadka ugu dhagan, walow badi lagu dhaleeceeyo inuu shaabada jirkiisa ku talo uu dhagaha durto, laakiin marka loo fiiriyo muujinta diinta marka kaamirooyinka la joogo waa mid ka mid ah xidigaha diinta aadka ugu dhagan. Yaya Toure haliga kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah xidigaha aadka ugu adag diintooda. waxa uu horey u muujiyay jaceylka diinta Islaamka weliba si aan gambasho lahayn. waxaa hadaladiisii la yaabka lahaa ka mid ah, anigii ma ihi mid caba khamriga sababtoo ah waxaan ahay muslim. si kastaba ha ahaatee, xidigan ka soo jeeda wadanka Ivory ama Côte d'Ivoire waxa uu wax badan yahay mid muujiya diinta Islaamka, waxaana uu kaamirada horteeda kala soo muuqdaa inuu yahay xidig muslim ah. dhammaan cushaqda kubadda cagta way ku tixgeliyaan diintiisa, xitaa xidigihii Manchester City oo qaybta ka ahaa way ku tixgelin jireen diintiisa maadaama aysan badi khamriga la soo aadi jirin amaba marka xidiguhu ay koob u dabaaldegayaan. haddaba daawade, adiga ahaan xidigee baad isleedahay diintiisa aad ayuu ugu adag yahay? waxaad sidoo kale soo qori kartaa xidig aanan warbixinta ku soo dirin balse diinta aad ugu adag. fiiro gaar ah, xidigaha diimahooda ku adag aad ay u badan yihiin, kama gaarno inaan dhammaan soo qorno amaba aan warbixinta ku soo qaadanno, laakiin tiro ka mid ayaan soo qaadanay. laga yaabay inaan ka soo tagnay qaar mudnaa in lagu soo daro oo diimahooda aad ugu adag. magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho. aad iyo aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.